waraysiga khaaska ah ee cabdikariim muuse qalbidhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxaa markii ugu horraysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sidii ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dowladda etoobiya. habeenku waa Arbaco 23 bishii Agost 2017 waa xilli fiida. ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa gala hotel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo. ciidan baa yimid laafay u garaacan waan ka furay hawshadeedii qaabkaas ku bilaabatay. ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay ku xireen qol madow. su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen. way ka hayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo dadku xidhi jiray bay geeyeen. 3 habeen baan joogay. Gaalkacyo 3 habeen lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray sargaalka ku soo qabtay ma taqaana? ma aqaano sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magacayga ahayna ma jirin. aba yaraatee magacayga baa la weydiiyey magacaygana umaana sheegin toos umaana sheegin. galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan u malaynayaa iyagoo magacayga sheegayaan banaanka ka maqlahay hadal haynta magacayga banaanka ka maqlahay laakiin intii hebel ma tahay ma aynan ugu dhigin. cabdikariim muuse qalbidhagax waxaa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. maalintii Jimcaha ee 26 bishii Agost xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay cabdikariim qalbidhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. ugu yaraantaasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaadhay madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay. haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Itoobiya. walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho. walbahaara waan qabay wararmay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiiraysaa jigjiga kulaada. laakiin markaan arkay meeshaan kasoo caga dhiganayno badii bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan kusoo dhawaanay xamar waan farxay aad baan u farxay. dhowrkii habeen walaacday ahaana wuu iga ba'ay anigoo indhahaygu toos wuxuu arkahayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadka qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday. waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. welina cabdikariim muuse qalbidhagax looma sheegin cidda uu u xiran yahay iyo sababta loo haysto. waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay. kabacdi xamara lagu keenay. xamar wax ma lagugu weydiiyey iyada? aniga qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamcuu sii wareegayey habeenkaas goor casarkii jamcii casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey. waxaa la weydiiyey keliya qalbidhagax ma lagu yidhahdaa magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa layidhi cabdi muuse la yidhahdaa baan ku yidhi. wixii kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay caruurtaada magacyahood waxaas oo iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala. qabiilkaagay ku weydiiyeen? mar walba su-aalaha igu soo noqonayo ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay. marka intii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay. maxaa yeelay dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laigu tuunsan yahay in la weydiiyaan filayay. laakiin magacayga markastoo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qolamaa tahay bay ahayd. arrintaas aad bay runtii igu ahay arrin iyo cuntami weyday oo aanan fahmin. waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi maaha iyo wax laisku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan. marka markii ugu dambeysay inay ahayd baan u malaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaad tahay gudoomiye ku-xigeenka jabhadda ONLF maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa. waxaan ku yidhi ONLF-nimadu dembi maaha aan ku yidhi waa urur goonimo doona oo la yaqaano dunida caafimaad ku leh oo xafiiska ku leh dalka laga yaqaano oo Soomaaliya. marka ururkaas dembi maaha in qofku ka tirsan yahay. laakiin aniga ninkaa sheegaysaa mihi baan ku yidhi anigu gudoomiye ku-xigeenka ONLF ihi madda Soomaalidu way taqaanaa gudoomiye ku-xigeenka ONLF meeshana way taqaanaa meeshu degan yahayna way taqaanaa. marka orda soo xaqiijiyaan ku yidhi waxaana waa gartay. ninka su-aalo mar intaan baa soo dhex gashay. ninka su-aalahaas ku weydiinaya iyo dadka su-aalahan ku weydiinaya qofna ma ka garatay? qof horey aanu aqaani kuma jiro haba yaraatee. laakiin ninka su-aalaha weydiinaya qoladan ciidankiisa ee meesha joogtay ilaalada ah markii u horreysay waxay igu yidhaahdeen ninka xafiiskaa ku jira u tag bay yidhaahdeen. garas u tag bay igu dheheen. garas muxuu ahaa markaan ku yidhi waxay dheheen waa ninka dambe baaraha garas la yidhaahdo u tag xageedu jooga xafiiskaasu ku jira
igu dhaheen xafiiskii markaan galay oo nin dhex fadhiyaan ugu tegay meeshii qolka ii tilmaameen markaasa waxaan ku yidhi garas ma adiga markaasuu wuxuu igu yidhi haahe qalbi dhagax ma tahay igu yidhi marka warwii waan ku yidhi marka ninkaas baa jiray waxaan magaciis hataa garanahayo mana sii weydiin cid kale laakiin inta ugu badan ninkii wax iga qorahayay buu ahaa. waxaa la soo gaaray Isniin 28 bishii August hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kallahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo. anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroortii waxaa igu soo galay niman ciidankii meesha ilaalada ahaa kamid a waxay yidhahan sarwaalkaaga qaado kale sarwaalkaagii oo ii keeneen iga maqnaan shaarkaaga xidho wax iyabaan xidhay waxaan u qaatay in la ii geynayo meel maxkamad in la ii geynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la ii diyaariyey inkastoo waa xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisyada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qayb kamida ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii laiga xidhay aad baan u shakiyey gacmaha markii laiga xidhay ama indhaha aan laiga xidhin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xidha markaasaa indhahana laiga xidhay xadhiggii gacmaha laigu sii adkeeyey kii indhaha laigu adkeeyey laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho. baabuurka lagu qaaday baabuurka laga wareejiyey kontarollo way jireen aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa lagu wareejiyey baabuurkii dambe lagu wareejiyey baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo ku hadlayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu waday ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna laiga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sida isaga la ahayde marka waa laiga soo dejiyey diyaaradaasaa laila soo wareejiyey si wareegaha saas oo kale yaa laila soo wareejiyey meel aan malayn madaxa diyaaradaasaa laila soo wareejiyey meel baa la istaajiyey meeshaa la istaajiyey gacmaha ciidan baa gacmaha hayay ma arkaynin dadka kale sii taagan laakiin shanqar baan dareemayey dad meesha taagnaa iyo intii yaraydeen taagnaa kuwa kusoo socday iyo jaanqaadkooda un baan maqlayay runsiga marka ma caddayn kara laakiin meeshaasu meeshay ahayd si yar markaan taagnaana diyaaraddii baa laigu celiyey inay iyadii ahayd iyo inay nooceedii ahayd ma garanayo laakiin diyaaraddii baa laigu celiyey. muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya. goday markay ka tegtay aniga oo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshani waa godaygii igu yidhi nin ciidanka Etoobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkooda igula hadlay igu yidhi meeshani waa goday luqadooda aad umaana fahmaynin laga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan sii raacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshani waa goday yidhi anoo diyaaradda saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada ga tahay meeshaan taagnahay markaasaan arkay ciidii inay ciidii goday u eg tahay magaalada dhaanteeda meel ka arkay diyaaradii baa laiga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xiran baa laisoo dhexmariyey airboortka aan ku dhex lugeynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodhiga iyo waxyaaba meelaha tuuran baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay Etoobiyaanka ahaa dad un dhammaantiin un qolyahaas un ka wada tigsanaa yaan meesha ugu nimid meel bay ay deganayeen bay igeeyeen sawirray damcaynan iga qaadaan oo dhinac baan uga jeedsada waan diidanaa inay sawir iga qaadaan wejigaygaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaga kay boodhaadhiyeen iskakay aflagaadaynahayeen laakiin waxaas oo dhan ma wax hadda macna weyn way samaynahayeen maahayn wejigayga un baan diidanaa inay ay soo hor istaagaan isagoo toosa inay sawir iga qaataan baan diidanaa inahaas kadib haddana waa un la caraabiyey xilli aanu malayn 5 galabnimo haddana diri dhaba laga dejiyey meel xun oo xabsiyada yaa habeenkii maqribkii markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aada runtii u fool xun oo aada u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saacado badan bay ahayd laakiin qofkii sidaydoo kale danta ku qasataa uu iskaga jirahayey kama bixi karin halkaasay maalintii dambena yaan igu hayeen waa laiga qaaday galabtii dambe xilli aanu malaynahay inay 5:15 galabnimo ay qiyaasta tahay yaa taaba meel u dhowoon safrada la yidhaahdo airboort ciidamadu ay leeyihiin yaan ka degay iga dejiyeen kola halkaa lagu sugaysa aanu tagnay oo sirdoonka dalka ah baabuurkii ay wateen baa laigu wareejiyey katiinadii hore iga xanayd intii laiga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladuna hayseen baa laigu bedelay sidaasaa waxaa laigu geeyey meel yar oo xabsiya
waraysiga khaaska ah ee cabdikariim muuse qalbidhagax uu siiyey barnaamij